agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta dowladda Puntland Maxamed Cali Nuur Juba ayaa cadeeyay in 23 xubnood ee golaha deegaanka degmada Buurtinle 16 xubnood oo kamid ah ay sacsileen sidaasina ay ku dhaceen golaha deegaanka degmada Buurtinle. sidoo kale agaasimaha ayaa sheegay in si degdeg ah loo soo magacaabi doono gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen ku meel gaar ah si loo soo dhiso golaha deegaan oo cusub. sidaan ognahay na soo gaadhay waraaq iscasilaada oo ay soo gudbiyeen xubno ka tirsan golaha deegaanka degmada Buurtinle. waraaqdaas markayna soo gaadhay waxaan xaqiijsanay in ay dadka meesha ku qornaa xubnaha deegaanka ahaa xubnaha golaha deegaanka ahaa inay ku caddahay in iscasilaadooda ay dhab tahay. waxaan la xiriirnay 12 xildhibaan ayaa noo keenay waraaqaha halka aan kala hadalnay 2 xildhibaan oo kale telefoonka iyagoo noo cadeeyay in ay qayb ka yihiin iscasilaada ay soo gudbiyeen. marka halkaas waxaa meesha ka baxayo sharcigii uu ku shaqeynayay golaha deegaanka degmada Buurtinle. kadib markii aanu wareysanay ay dhexdooda ay ka cadeeyeen in ay rabaan in aysan sii shaqeyn doonayeen bideenna inay iscasilaan. marka intaas ayaa warbixinta aan ka helnay ay ku koobneed. golihii waan u furnay waxaan noo xigtay iyagoo ay soo gudbiyeen waraaqihii iscasilaada oo ku aadaneed shaqooyinkaas. intaas ayaan anagu xogta aan haynay tahay. laakiinse saaka waxaan filaynay in ay fadhiistaan kalfadhigooda u furmo ay ajandooyinkooda miiska soo dhigaan sida qaynuunka uu qabo ay u codeeyaan ajandaha miiska u saaran oo 1 iyo 2 ay isku raacaan. bacdeen kadib markay isku raacaan ay guda galaan shaqooyinkoodii kale ay hadba mid ay soo qaataan ajandaha miiska u saarnaa. dabcan sida hadda meesha ku cad ma aysan dhicin mana la isla gaarin howsha iyada. loo soo magacaabayaa gudoomiye ku xigeen si ku meel gaar ah 45 cashar gudahoodana lagu soo dhisi doono golihii deegaanka degmada Buurtinle. dabcan waxaan kala hadalnay nabadoonnada iyo uqaasha soo diyaariyo xubnaha iyagoo aanu kala hadalnay habka ugu wanaagsan oo loo dedejin karo si loo helo xubno hufan awoodna u leh in ay golaha deegaanka degmada sii wadaan. dabcan waqti bay qaadanaysaa laakiinse waxaan culayska ugu weyn aan saaraynaa inaan arrinkan aan dedejinno. guuleed Saajid Jaamac warbaahinta dowladda Puntland Buurtinle.